halkani waa gaacir media tube dhagaystayaasheenna iyo daawadayaasheenna sharafta mudan kusoo dhowaada barnaamijka wixii cusub ee wararka iyo falanqaynta gaacir media tube kaasoo aan idinkugu soo gudbino arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, teknolojiyadda, sayniska, caafimaadka iyo wixii la midka. haddaba dhagaystayaasheenna iyo daawadayaasheenna sharafta mudan, qodobka maanta aan idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wixii cusub ee gaacir media tube wuxuu yahay Taiwan iyo Shiinaha. gaar ahaan Taiwan ayaa tidhi Shiinaha waa inuu iska tuuraa ama iska daayaa fikradaha duuga ama fikradaha dib u dhaca. sidoo kale Taiwan ayaa codsatay in kala duwanaanshaha lagu xaliyo waddo rasmi ah oo ku dhisan qaab nabadeed oo cadaalad ah. haddaba dhagaystayaasheenna iyo daawadayaasheenna sharafta mudan, inta aanan u gudagelin warbixintaasi oo dhammaystiran, fadlan waxaan idinka codsanaynaa subscribe, share, like iyo follow inaad aadaan page-ka iyo channelka gaacir media tube ee aan ku kala leenahay baraha bulshada, gaar ahaan Facebook-ga iyo YouTube-ka. waa mahadsantihiin. aan ku bilaabo. Taiwan ayaa tidhi Shiinaha waa inuu iska tuuraa ama iska daayaa fikradaha duuga ama fikradaha dib u dhaca. Taipei ayaa arrinkan tidhi markii uu soo idlaaday toddobaadkii tagay shirka xisbiga hanti-wadaagga shuuciga Shiinaha, iyadoo Taiwan xaqiiqsatay in xisbiga shuuciga Shiinaha uu ka soo horjeestay madax bannaanida dalkeeda, isla markaasina xisbiga shuuciga Shiinaha uu xusay in ay muhiim tahay inuu isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka Shiinaha. haddaba xubnaha golaha fulinta Taiwan u qaabilsan shuruucda xuduudaha ka baxsan Taiwan war mutiyeed ay ka soo saareen ayay ku yidhaahdeen sidan: dowladda shuuciga ee Shiinaha maamulkeeda cusub waa inay iska daysaa fikradaha dagaalka iyo iska horkeenka xambaarsan, isla markaasina waxaan codsanaynaa in kala duwanaanshaha lagu xaliyo waddo rasmi ah oo ku dhisan qaab nabadeed oo cadaalad ah. xisbiga shuuciga Shiinaha si uu uga hortago madax bannaanida Taiwan isla markaasina awood ugu yeesho arrinkan, xisbiga shuuciga Shiinaha wuxuu dib u habeyn ku sameeyey dastuurka dalka Shiinaha. warbaahinta AFP ayaa ku soo warantay go-aanka dib u habeynta dastuurka Shiinaha in lagu sameeyey isla markaasina la ansixiyey maalintii Sabtidii, iyadoo ay xaadir ku ahaayeen kulankan xubno 2,000 ah oo ka tirsan Koongareeska xisbiga qaranka ee Shiinaha. shirkan xisbiga shuuciga Shiinaha oo socday muddo 7 cisho ah ayaa wuxuu soo idlaaday Sabtidii shalay, taariikhdu ahayd 22 bisha 2022. go-aanada shirka xisbiga shuuciga Shiinaha ka soo baxay waxaa ka mid ah in madaxweyne Xi Jinping loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha xisbiga shuuciga Shiinaha ama China Communist Party 5 sano ee soo socota. shuuciyadan shirkan guud ee xisbiga shuuciga awood dheer ah ayuu ugu daray madaxweynaha dalka Shiinaha gaar ahaan madaxweyne Xi Jinping oo xilka madaxweynada dalkaasi hayay laga soo bilaabo 2012 ilaa iyo hadda. waa sida ay kusoo waramayso warbaahinta dalka Shiinaha ee Xinhua. Mr. Xi Jinping ayaa noqday madaxweynihii labaad ee Shiinaha muddo dheer maamulo ama xukuma markii laga soo tago Mao Zedong ayaa ahaa madaxweynihii ugu muddada dheeraa ee xilka madaxweynenimada ama xukunka dheer ka qabto dalka Shiinaha. waxaa sidoo kale shirkan sanadlaha xisbiga shuuciga Shiinaha uu fasax buuxda u siiyey in madaxweyne Xi Jinping 5 sano ee soo socota wax kordhin iyo wax ka bedelisba uu ku sameyn karo caqiidada ama ideolojiyada shuuciyadda hanti-wadaagga ee dalkiisa ee uu isleeyahay faa'iido ayay u leedahay nolosha muwaadiniinta dalkiisa. shirkan sanadlaha xisbiga shuuciga ayaa lagu doortay 25 xubnood kuwaasoo loo dartay xafiisyada sare iyo 7 xubnood oo golaha dhexe ah. xubnahan xafiisyada sare loo doortay hal dumar ahna laguma darin, taasoo hadal hayn badan ka dhex abuurtay caalamka. waxaa la sheegayaa in muddo 25 sano kadib in ay tahay markii ugu horeysay oo qof dumar ah laga dhex waayo dowladda Shiinaha xubnaheeda ay u magacaawday xafiisyada sare. gunaanadkii shirka xisbiga shuuciga Shiinaha, madaxweyne Xi Jinping ayaa sheegay inuu u dagaalamayo una shaqaynayo guusha dalka Shiinaha. waxaa la sheegayaa arrimaha madaxweyne Xi Jinping
uu xoogga saari doono inay ka mid yihiin arrimaha coronaviruska, arrimaha dhaqaalaha oo saameynta ay ku yeesheen dagaalka Ukraine iyo Ruushka, sidoo kalena arrinta Taiwan inuu xoogga saari doono ayaa lagu soo warramay. dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inaga barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube. barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube kan xiga intaan ku kulmi doono nabadiino.